oo ay ka gudbeen Soomaaliya muddo 50 sano ka badan ayay dhageystayaal kala duwani xilliga habeenkii dhegta u raaricin jireen xog maad iyo madadaalo ayay jilal kala gedisani ka dugsan jireen inta aanay hurdada habeenkii gelin wariyaal dhagaha dadka Soomaaliyeed ku caan ah ayaa ku hana qaaday idaacadda habeenimo ee BBC-da aniga wuxuu ahayd markaan ku biiray barnaamijyadii uu BBC-da ka baxayay mid kamida waa inaan sameeynay oo idaacadda habeenimo ee BBC-da intii ay jirtay dib u habeen fara badan ayay soo martay mar waqtigeeda la kordhiyay mar magaca laga bedelay iyo mar laga soo raray dhismihii ay ku caanbaxday ee Bush House ee ay dad badani ku yaqiineen waxaa ku xirnaa dhageystayaal kala duwan oo fara badan oo dhageysan jiray مثلا barnaamijyadii dhaqaalaha caafimaadka waxbarashada isbeddelka tiknoolajiyadda dunida ee degdegaya iyo doonista dhageystayaasha oo tii hore ka duwan dartood guud ahaan warbaahinta adduunka ayaa casriga ka dambeeyay hirar cusub la jaan qaadaya BBC-duna waxay ka mid noqotay hay-adaha dantu khasabtay hadda muuqaalkii iyo in si toosa baraha bulshada loo soo galo waxay noqotay wax joogta ah BBC-dan waxay rabtaa inay xoog saarto sidii ay tartankaas ugu guuleysan lahayd iyo dhageystayaal hor leh waxaa hubaal ah in dhageystayaal badan xilliga dhow tabi doonaan idaacadda habeenimo ee BBC-da balse in loo darsan doono iyo in kale waa su'aal xilliga fog laga doodi karo guleed garaad